وبركات مروين يومنا يال واحد كسر دواتين وروحي الدلك دقمدا إيو أدوينها بني كسر جاري هبين كان عاو حاجة البشنكا قد بضع وكدور كورن وركين حاجة البشنكا وحاكم ذا مدحونا الجمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر الجلايا ساكا قابل وفدي كسر دلك مريكا كاو قابل سنتا كولينتا إيو وحكا بدلك قابلات كدوينها مناصرين لغو داري حاكمة عصوية ساكا لغو قابتي قرق حسابات كي يهانت الدور كميزانية الدولة دا حقا وركا الدقمة نبدا قالبا يولي كسي سعودا ميلوك كميدا مقالة مقدشو حقا وركا عالم كان هدوانو حالا بحسي دونا عالم كحوسكا مالك عالميغا بيها انتاسي ووركي اوكوبان خاتنا اساقي اوفافاسن بسم الله الرحمن الرحيم وركي الدلكا مدحونا الجمهورية جيبوتي قدومية قلا حكومة مدن إسماعيل عمر الجلايا ساكا قابلي وفتي كسر دلك مريكا كاو قابل سنتا كولينتا إيو وحكا بدلك قامنوليد كددوينها وفتقني وحا هركعي سهم السيسي جوليفر أو حبينك كونغريغا أمريكانكا أقولك أبحمرين مدحونا جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر الجلايا وفتقني كجوغا دلك جمهورية جيبوتي بوقشد هولاد وحا أجوغا كقيب قاتي وزيرك أرمها مدحتويدا مدن عثمان أحمد موسى يدنجرها بلد أمريكانكا أفضي جيبوتي موسى ستيوار سنك مكتون وفتقني وحا مالتي شلة طلعي بغضين أقبل كتجورة سيعوصو إنديان مشاريع تاكولينتا هيدا USAID ay ka wado gobolkaasi waa gobolka Tadjoore guddiga sharciyeynta iyo maamulka guud ayaa maanta fadhi ku yeeshay qolka shirarka ee guddigaasi ku leeyahay guriga ummadda ee caasimadda Djibouti fadhigaasi waxaa daadihinaya gudoomiyaha guddigaasi xildhibaan Sulaymaan Mijir Cali waxaana ajendaha ku jira mashruuc xeer ku saabsan sharciyeynta lacagaha maalgelinta lagu sameeyo loo yaqaano microfinance ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti howlaha fadhigaasi waxaa goobjoog ka ahaa maamulaha bangiga dhexe jaamac maxamuud xadi haweenada agaasimaha ka ah sanduuqa bulshada Marwa Xawa jaamac Idle waxaana fadhigaasi uu ku dhamaaday is-afgarad iyo jawi wanaagsan waxaana la isku raacay ansixintiisa iyo loo gudbo fadhiga loo dhanyahay ee golaha baarlamaanka ee Djibouti gees kale guddiga maaliyadda dhaqaalaha guud iyo qorsheynta ayaa maanta fadhiisna ku yeeshay qolka shirarka ee guddigaasi ku leeyahay guriga ummadda caasimadda Djibouti waxaana shir gudoomiyaha guddigaasi xildhibaan Axmed Jaamac Geedi waxaana ajendaha ku jiray mashruuc xeer oo lambarkiisu yahay 181 ku saabsan hantida maaliyadeed ee garoonka Alxaaji Xasan Gulid Abtidoole sanadkii 2005 mashruuc xeer oo lambarkiisu yahay 183 ku saabsan hantida maaliyadeed ee garoonka caalamiga ee dayuuradaha ee Djibouti ee sanadkii ku shaqeeyay sanadkii 2005 iyo mashruuc xeer lambarkiisu yahay 184 ee qeexaya hantida maaliyadeed ee garoonka caalamiga ee dayuuradaha ee Djibouti ee sanadkii 2005 iyo mashruuc xeer lambarkiisu yahay 185 ee qeexaya hantida maaliyadeed ee ku shaqeeyay shirkadda guryeynta ee Djibouti sanadkii 2005 dhinaca xukuumadana fadhigaasi waxa uga qayb qaatay wasiirka qalabaynta iyo gaadiidka mudane Ismaaciil Ibrahim Maxamed wasiirka hoyga iyo deegaanka mudane Cilmi Cabsiye Wacays iyo wasiirka dhalinta iyo isboortiga mudane Xasan Afarax Migin fadhigaasi waxa kale ka qayb qaatay xildhibaano badan oo ku jirin xubnaha guddigaasi kadib markii si wanaagsan looga baaraandegay waxaa la isku raacay in mashaariicda la soo bandhigo fadhiyeenha loo dhanyahay golaha baarlamaanka Djibouti ay sugu iman doonaan guddiga isku dhafka iyo maamulka xuduudaha Djibouti iyo Eritrea ayaa wali howlaha ka socdaan magaalada Tadjoore xubnaha wafdigan waxay ka kooban yihiin wakiilo kala duwan oo ka soo jeeda wasaaradaha waxaana sida wada jir ah u daadihinaya wakiilo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha ee labada dal waxaana maalintii shalay ay ku yeesheen xarunta isboortiga ee magaalada Tadjoore shir hawleed waxaana sidoo kale magaalada Tadjoore lagu qabtay ciyaaro hiddi iyo dhaqan ah oo lagu sharfiyay wafdiga ka socda dalka Eritrea shirkani waxa lafdabar u ah sidii loo soo xoojin lahaa xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashiga u dhaxeeya labada dal howlaha shirkani labaad waxa uu bilaabay saaka waxaana booqasho wacyigelin ay ku soo mareen lagacaas
dhisaan. labada guddi waxaa maanta galinkii dambe dib ay u qaadanayeen u bilaabineen howlahooda, waxaana halkaasi lagu wadaa in ay qalin ku kala duugaan heshiisyo kala duwan. guddiga ka socda dalka Mareykanka ee qaabilsan taakulaynta iyo wax ka beddelka qaab nololeedka dadweynaha ayaa maalintii shalay tala booqday gobolka Tajura. waxaana qodobka ay ka jireen howlihii dhismaha ee ka socday dugsiga hoose ee magaalada Tajura. munaasabadaasina waxaa goobjooga ka qayb qaatay gudoomiyaha gobolka Tajura, suldaanka Tajura iyo danjiraha dowladda Mareykanka u jooga Djibouti Mr. Stewart Slickton. wafdigana horkacaysa Mrs. Jennifer Dunn oo ka mid ah xubnaha Koongareeska waxaa laga wargashay howlaha ku salaysan xagga iskaashiga dowladda Mareykanka ay ka fuliyeen Djibouti, gaar ahaan gobolkan oo laga hirgashay xarumo caafimaad iyo mashaariic xagga ceelasha biyaha oo ay qalabaysay hay'adda USAID. wafdigana waxaa la kulmay xubnaha ka soo jeeda bulshada rayidka sida ururada waalida ardayda, macallimiinta iyo weliba ururada kale. waxaana sidoo kale ay soo boqdeen xarunta qaabilsan soo saarka farshaxanka ururka haweenka ee gobolka Tajura. waxaana halkaasi kusoo dhaweysay haweenada gudoomiyaha ka ah ururka haweenka Tajura ahna xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka Xasna Xasantu. munaasabad lagu baaranayo xaakimaha cusub ayaa saaka lagu qabtay guriga xisaabaadka iyo hanti dhowrka miisaaniyadda dowladda ee Djibouti. waxaana xaakimadan ay kala yihiin Madabax Ismaaciil, Faadimo Roble Jaamac, Cabdulqaadir Cabdallah iyo Maxamed Maxamuud Xaashi oo ah mas-uulka maaliyadda ee guriga xisaabaadka. waxaana ay ku hor dhaarteen gudoomiyaha waaxdaasi Maxamed Maxamuud Xasan, waxaana u joogto ka qayb qaadatay Ismahaan Maxamuud oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud. waxaana kaloo xaakimadan qalinka ay ku duugeen amaba ay saxeexeen buugga dahabka ee guriga xisaabaadka iyo hanti dhowrka miisaaniyadda dowladda Djibouti ay leedahay. golaha qaran ee dhalinyarada ee reer Djibouti ayaa maalintii shalay galinkii dambe fadhi ku yeeshay guriga ummadda ee caasimadda Djibouti. fadhigaasi waxaa daadihinayay wasiirka dhalinta iyo isboortiga mudane xasan faarax migin, waxaana u joogtay oo ka qayb qaadatay haweenada gudoomiyaha ka ah guddiga qaran ee dhalinyarada reer Djibouti Marwe Xasna Barkhada Daa'uud. sidoo kalena waxaa goobjooga ka qayb qaatay gudoomiyaasha golaha heerka degmo iyo xubnaha xafiiska qaran ee golaha dhalinyarada ee reer Djibouti. hadal gaaban halkaasi ay ka jeedisay haweenada gudoomiyaha ka golahaasi Marwe Xasna Barkhada Daa'uud waxaa meelo faahfaahsan ay ka bixisay xeer hoosaadka golahani, waxaana ay u mahadnaqday ka qaybgalayaasha ka qayb qaatay fadhigan. sidoo kale waxaa hadal gaaban munaasabadaasi ka jeediyey wasiirka dhalinta iyo isboortiga mudane xasan faarax migin, waxaana uu sheegay in xukuumaddu ay hindistay waaxdani sidii dhalinyarada dalkeena looga qaybgelin lahaa horumarka dhaqandhaqaale. waxaana uu sheegay in golahani uu yahay goob wadatashi ah oo ay ku kulmayaan dhalinyarada reer Djibouti islamarkaana isku wadaarsanayaan wixii fikir ah. waxaana intaasi uu ku daray wasiirka dhalinta iyo isboortiga ee Djibouti mudane xasan faarax migin in golahan uu qayb ka yahay tusmada jidmarka xukuumadda ee hormoodka uu ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele oo isagoo had iyo jeer dadaal dheeraad ah ku jira sidii dhalinyarada looga qayb gelin lahaa go'aan qaadashada. waxaana uu ka codsaday ka qaybgalayaasha ka qayb qaatay fadhigani in si wanaagsan ay u gutaan wixii waajibaadka la saaray. ujeedada fadhigani waxa uu ahaa sidii loo meel dhigi lahaa istaraatiijiyada xagga howlaha ay ku tallaabsan doonaan guddiga qaran ee dhalinyarada reer Djibouti. intii uu socdayna fadhigaasi Monsieur Florent Parmentier oo xubin ka ah golaha caalamiga ee ururada dhalinyarta ee bahwadaagta luqadda Faransiiska ee loo yaqaano Francophonie halkaasi ku soo bandhigay cadaalada video ka xog waramaysa howlaha iyo ujeedooyinka laga dugsiyo golaha qaran ee dhalinyarada ee reer Djibouti. kadibna ka qaybgalayaasha ka qayb qaatay fadhigaasi waxay yeesheen doodo
waxayna isku raaceen dhowr heshiis oo ku aday sidii loo sii xoojin lahaa maaraynta golaha qaran ee dhalinyarada reer Jabuuti. Golaha qaran ee dhalinyarada reer Jabuuti waxaa dhidibada u taagay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele bishii Febraayo 28 howlaha la xidhiidha xuska maalinka caalamiga ee bahwadaagta luqadda Faransiiska ee loo yaqaan Francophonie waxaa maalintii shalay lagu qabtay dugsiga Alliance Franco loo yaqaan ciyaaro qaybka xuska maalintan caalamiga ee Francophonie. Conteur, humoriste camerounais de nationalité française vivant à Marseille a joué son spectacle devant les jeunes étudiantes de l'Alliance franco-djiboutienne. Absorbé par sa manière de raconter, la participation et le rire ont régné dans cette salle. À chaque fin de compte, Saïdou Abacha ardayda uga soo jeedaha dugsiyada kala duwan ee caasimada Jabuuti waxaa halkaasi lagu soo bandhigay majaajilooyin kala duwan oo qayb ka ah xuska maalinka caalamiga ee bahwadaagta luqadda Faransiiska ee loo yaqaano Francophonie. Il n'a pas oublié de fixer le beurre à la manche de sa chemise. Et il a... kadibna waxa aan waraysi aan la yeelanay Monsieur Kofi Kahule oo ah mu'allifkii soo alifay riwaayadii lagu magacaaday Bintu ee qayb ka ahayd xuska maalinta caalamiga ee bahwadaagta luqadda Faransiiska ee Francophonie. waxaana xuska maalinkan caalamiga ee bahwadaagta luqadda Faransiiska lagu qabtay xarunta dhaqanka Faransiiska ee Akhtiyo Qaabo loo yaqaano majaajilooyin kala duwan oo qayb ka ah xuska maalinta caalamiga ee bahwadaagta luqadda Faransiiska ee Francophonie. C'est-à-dire que moi, en fait, il doit arriver en France, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, les valeurs avec lesquelles Monsieur... la France, elle était bonne, mais certaines ne pouvaient pas fonctionner au contact de la société française. Monsieur Kofi Kahule waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay inuu ka qayb qaato xuska maalinta caalamiga ee bahwadaagta luqadda Faransiiska ee Francophonie. waxaana hore ujeedadu waxa ay tahay sidii loo kobcin lahaa luqadda Faransiiska. Quelque part l'incarnation de cette jeunesse et qui essaie de créer une culture qui... warbixin ka soo baxday ciidamada jandarmeriga waaxda ilaalada wadooyinka waxay ku tibaaxeen in maanta galkii dambe shil baabuur oo ka dhacay meel ku toosan goobta doogta loo yaqaano Maryam waxaana shilkaasi ku dhaawacmay 6 qof oo laba ay halis yihiin waxaana u gurmaday markiiba ciidamada jandarmeriga ee waaxda ilaalada wadooyinka waxaana ciidamada sheegeen in sababtu ay tahay gaarigaasi oo si xawli ah u socday iyo taageerada baabuurkaasi oo dhamaaday. xagga wararka degmadana dagaalada ayaa weli kasii socda meelo kamid ah magaalada Muqdisho. dagaaladaasina waxay yihiin kuwo u dhaxeeya ciidamada dowladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo kooxaha iska caabinta oo kasoo horjeeda joogitaanka ciidamada shisheeye. dagaaladaasina waxa ay kala xireen xaafado ku yaala magaalada Muqdisho sida suuqa xoolaha iyo isgoyska Fagax waxaana sidoo kale ka qaxay qoysas badan. gees kale madaxweynaha dowladda ku meel gaarka Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa habeenkii xalay soo magacaabay guddiga hormuudka ka noqon doona shirka dib u heshiisiinta qaran ee lagu ballansan yahay inuu qabsamo 16 bishan Abriil ku jirno sanadkan 2007. Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa uu hoggaanka shirkaasi u dhiibay Cali Mahdi Maxamed oo mar noqday madaxweyne ka noqday dalka Soomaaliya. Cali Mahdi Maxamed oo mar la wareystay waxa uu sheegay in shirka loo dhiibay uu u fulin doono sidii loogu dhibay oo qora. xagga wararka caalamkana dhawaanta caalamka waxaa laga xusi doonaa xuska maalinta caalamiga ee biyaha falada xuskaasina waxa loo soo diyaariyay booq. dunidu waxay halis ugu sugan tahay biyo la'aan la soo gudbanaata
biyaha oo ah nolosha koowaad ee aadamaha sankulneeflaha dhammaantii ee dunida ku dhaqan waxaa loo hawlan yahay sidii loo qaban qaabin lahaa xuska caalamiga ee biyaha taasoo muhiimiyaddu ay tahay in mudnaanta la siiyo sidii biyaha loo daryeeli lahaa lagana ilaalin lahaa tarkiifal joogto ah oo dadka qaarkood ay ku geystaan dunida caalamka waxay tahay ta koowaadi in iskaashi midaysan laga yeesho maaraynta ama korqaadida tayada xagga biyaha haddii ay timaado biyo la'aani waxa ay lagu haboon ayaa ay yiraahdeen khabiirada iyagoo ka hadlay dhibaatooyinka ka taagan dunida caalamka ee haatan la soo gudboonaaday dhinaca biyaha gabaabsiga ku noqday in ay tahay mid iskaashi joogto ah laga yeesho sidii loo wanaajin lahaa dadaalna loogu muujin lahaa in la xoojiyo ilaha iyo sidii loo badbaadin lahaa ilaha biyaha ee dhulka hoostiisa ka gudba biyaha oo ah macdad qayb weyn ka qaadata nolosha aadamaha ciidamada dalka Pakistan ayaa maanta tijaabiyay gantaalaha nooca misilka loo yaqaano markale iyo booq xukuumadda dalka Pakistan ayaa markii saddexaad waxay tijaabisay gantaalaha liishaanka fog ee misilka loo yaqaano si cajaa'ib badan ayaa hawlgalkaasi ay u fulisay ciidamada dalka Pakistan tijaabada hubkaasi misilka ayaa noqotay mid ugu bogay madaxweynaha dalkaasi Pakistan Pervez Musharraf gantaalahaasi oo isagu samada isku shareeyay taasi oo cajaa'ib noqotay daawadayaal intaanu ka bixin warkeena waxa lagu eegaysiisay caawa saacadu marka ay tilmaamayso 9:20 magaala soo doontaan barnaamij gaar ah oo ka hadlaya munaasabadii lagu soo gabagabay hawlgallada dhinaca ciidanka ee lagu qabtay xeerada Cali Cunay ku taala ee koonfurta bari ee gobolka Caarta munaasabadaasi oo ka qayb qaatay hormuud ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti gudoomiyaha golaha xukuumadda ahna madaxa sare ciidamada qalabka sida mudane Ismaaciil Umar Geele intaas ayaan ugu eeday daawadayaal warwixii dalka degmada iyo dadweynaha naga soo gaaray habeenkan caawa gala qayb qaatay wariye Maxamuud Barre Booq inta dib ku midoono dhamaantiin ba meel ka soo joogtaan oo naga daawanaysan waxaan iga tagnaa nabadgelyo iyo amaano Allah wa salaamu calaykum wa rahmatullahi